waxaa jiro marka beeraleyda ay beertaan galley oo fasalka u soo go'o waxaa la keenaa galley macaawina ayaa waxaa keeno hay'adda WFP markaasaa galleyda ay u soo go'do beeraleyda waxay u waayaan wax qiimo ah. haddaba halkan aan maanta wax ka duubayo waxay tahay nin beeraley ah oo galley u soo go'day ayaa markaasi suuqa geeyay galleydii wax qiimo ah ku waayay wuxuu iska keenay marka meel xaafada marka galleydaasi oo markaasi uu wadana dib u buugin iyo hagaajin dib ugu noqday marka taasna waxaa sababay hay'adda WFP ayaa markaasi waxay keentaa galleyda marka macaawinada markaasaa mid kale oo waddanka ka soo go'day markaasi qiimo loo waayay ama la gada waayay. haddaba waddan kasta wuxuu ku horumaraa ama dhaqaalihiisa uu markaasi kor ugu kacaa marka soo saarka dalka aad markaasi loo suuq geeyo ama qiimo loo yeelo markaas ayay waddanka dhaqaalihiisii kor u kacaa. haddaba arrintani waxay khusaysaa wasaaradda beeraha in ay markaasi wax ka qabato galleydii haddii ninkii beeraleyda ahay markaasi qarash badan ku bixiyo oo markaasi ay u gadmi waayo wixii markaasi u soo go'ay jab inuusan mar dambe dib ugu noqon beerihii oo hawlo kale iyo waxa iska galo. haddaba si loo dhiirigeliyo beeraleyda ama dadka tabcada beerta waa in markaasi laga celiyaa waxyaabaha kor loogu keenayo waa taas waa dalagii dalka waa barwaaqo sooran waddankeena laakiin waxay u baahan tahay habeen waxay u baahan tahay iyo siyaasad fog in loo dejiyo. arrintaasna waxay khusaysaa marka mas-uuliyiinta markaasi maamulka ama xilka haayo waa u jeedaan waa galley ka soo go'day dalka waa barwaaqo loodka dhan ee galleyda wuxuu joogaa 600 oo shilin Soomaali oo u dhigata adiga marka waddan kale ayaa waxa laga keenayaa galley inta dhiso loodkeeda ama 50 ama 100 oo qarash la soo geliyay waddankan aan laga cunayn tii waddan ka soo baxdana markaasi aan qiimo yeelin. haddaba mas-uuliyiinta iyo dowladda iyo dhammaan cidii khusayso waa inay markaasi wax ka qabtaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.